بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكتاب كان أساسيات في تربية الإسلامية عبد الله حسن فارح ولها 10 كان أفراد. وقال الله يا آداب طالبي في الفصل أحد كوحبران إياه مركو وحبر شدي إيا فصل كي يكون حجيره آداب تلقى بهاي هاي قار كمذا من الصفات تلمامها الجميلة قروح ضبضا التي تلمامها سو يتحلى وكل رقمها يسكق قرحنها بها تلمامها الطالب أرض وحبران المسلم كأ ما يلي سياسة صحتواي روح مركو حبران هيو مكان كودوني وحكو برتو مساجد مركو حكو بران هيو مدرسooyinka iyo macaahida markuu wax ku baranayo doorooyinka markuu wax ku baranayo ardayga wax baranaya haduu yar yahay iyo haduu weyn yahay oo dhalinyaro u yahay ama oday u yahay haduu wax baranayo uu yahay ruux dumar ama uu rag yahay haday badan yihiin iyo haday yar yihiinba aadaab looga baahan yahay ayaa jirta dadka muslimiinta wax baranaya soo cilmigooda u noqdo cilmi muxtarifa oo wanaagsan soo u noqdo لماذا محايلي علمك روح مركو برنهايو مسلمك يا روح قالك مركو علم برنهايو كلا فرق با انو دخيا انغو مركو آداب ديني او لما تابتان ايا جرتا سو نقد علمك روح برنهايو هدو يهي ديني هدو مادي يهيبا علم نافع marka sheekh wuxuu yiri tilmaamaha wanaagsan ee la doonay ardayga inuu ku dhaqmo oo isku qurxiyo sidan soo socoto yaa kamida weeyeen midda koowaad waxa weeye an yanaam ruuxa waa inuu seexdo mubakkiran xilli hore liyaquuma soo kaco li salaati al-fajr salaada subax arday aan akhlaaq lahayn oo diinta Ilaahay ku dhaqmaynin ardaygaas arday islaamnimo wax u haya ma aha muslimiinta xumaha iyo lafta xumaha iyo marka ardayga markuu cishaha tukado inuu hore ka seexdo la doonayaa si salaadii subax oo xilli hore u soo kaco laakiin haduu maanta ardaygu oo filmaan fiirsanayay ama oo ciyaal saaxiibada la cawaysimayay 6 saacadood saan u seexdo salaadii subax waajibkaana way ka tagi mid labaad waxbarashadii iyo xilliga hore ku xilaha iyo wuxuu diyaarsan lahaana way ka tagaysaa ardaygu wuxuu noqonayaa arday caajisan oo waxba baranin oo ilaahina ku xidhnayn ana waxa weeye bila aadamkana aan la dhaqmi karin noqonayaa nabigu calayhi salaatu wassalaam ummadda wuxuu ka reebay markii cishaha la tukado kadib in la sii sheekeeyo oo la sii mataqaan cawaysimo nabi maxamed uu ka reebay ilaa waxa lagu cawaysimahay inuu khayr yahay mooyaane oo waxa lagu caysado khayr iyo diin yahay nabi maxamed waa dhigtay baad al-cisha dadka muxaadaro u jeediyo marka ruux hadii dad ay u yimaadaan marti inuu xilliga la soo jeedo adu wixii aan faa'iido lahayn oo adduunyo aakhira faa'iido ku lahayn markii cishaha laga baxo ruux inuu ku cawaysimo mana waxa weeye waa khilaaf oo nabi aan khilaafay ay ka dhigan yahay ana waxa weeye cawaysinkiisa marka ardaygu koow filan uu san fiirsan wax kale uu san fiirsanine haduu samaka 10 iska diyaarinaynin waa inuu ardaygu markuu cishaha tukado oo hore ka seexdo من آداب طلبات الروح اللغة بين وحوية أن يحرص وإن الروح كد ذنب للدنيا على جمال مظهرة موقال قرح بضن هي ونظافة جسمي كيس النظيف النواجر كيس ونكد ذلا أرضي كما وحبرنا هيو حروق وحبرنا هي مساجد كبرا أو مدارس معاهد كبرا waxna ardaygu mar haduu wax ku baranayo ardayga weyn wax la baro maanta ha noqdeen ama ha noqdo cid walba wax la barahaye ruuxa markii wax la barahayo waa inuu ala jimaal madharatin dayma quruxsan dar quruxsan waa inuu ruuxu leeyahay oo si fiican ruuxa u soo labisto ayaa la doonayaa mid labaad intuu soo labisto hadana jirkiisa uu san nadiifan loo baahnaa wa nadaafati jismihi jirkiisana nadaafadiisa waa inuu ku dadaalaayo ruux ma taqaanaa qabaysan oo soo saliidaystay oo soo shanlaystay oo jirkiisana uu nadiif yahay labiskiisana uu nadiif yahay maca daalka si fiican u labisan ruux waa inuu yahay laakiin arday xalay waa seexday ama inuu xalay seexday waxa weeye
jawgii iyo dareerkii afkiisa ka day oo dhabanada kaga yaalo oo indhihiisii ay xoga xafasho leeyihiin oo dharkiisii galuusii qaar xidhayn qaar aan xidhnayn oo qaar qoosaqaysan yihiin oo isaga laftiisu arday xalay yaro cunug yaro waxa weeye intuu xalay isku kaaja laga yaadana inuu waxba marka cunugaasu de macalinka ku rafaadayo idaafiya ay noqon marka waxa weeye asaga muruadiisana way dhaawaciyo ciyaalka ku caayo umada ku caayi marka ruux kasta markuu soo aaday waxbarasho ku jiro ruux dhar quruxsan oo si fiican u labisan oo dharku fiican yahay oo jirkiisu nadiif yahay oo cadayan ruux waa inuu yahay aadaabta saddexaad ee ruuxa looga baahan waxa weeye idaa dakhala al-fasla markuu soo galayo meesha waxbarashada iyo fasalka yuxayi wa inuu salaama al-haadiriina dadka meesha jooga bi tahiyati al-islaam salaamta islaamka salaamta islaamkuna taa soo maray assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu weeyaan ruuxu marka waxa la doonay markuu soo galo masaajidkii waxbarasho ka socota ama fasalkii oo macallinkii ha jooga ama ha maqnaade waxa weeye ardaygu waa inuu dadka salaamo ayaa la doonayaa macallinkuna ummadda uu salaamo ayaa la doonayaayo salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu in ummadda lagu salaamo ardaygu kale da kasta uu yahay marka uu soo galayo meesha waxbarashada ummadda waa inuu salaamaa ee soo socdo intuu irida istaago soo galo iska fadhiista maya ardaygu waxa la doonayaa marka inuu salaanta islaam ka cadeeyo markasta uu imaanayo waa inuu marka uu dadka salaamaa la doonayaa aadaabta afraad waxa weeye an yataadaba waa inuu adab aad u fiican iyo aadaab fiican uu kula dhaqmo maca zumalaa'ihi saaxiibadiisa wayatawaadaca waa inuu u tawaaducaayo isku miskiiniya allahum ayaga walaa yu'diyahum waa inuusan dhibin walaa yarfacu waa inuusan kor u qaadin sawtahu hadalkiisa calayhim korkooda kor ugu qaadin aadaabta afraad waxa weeye ruuxan dad buu la dhaqmahayaa dad baad la joogta dadka wax kala dabeecado arday kala dabeecada mid waxa jira aan saakaba soo qoreecanin xalayna aan cashaynin oo baahan guriga waxba aan ku ogeyn mid waxa jira xalay waalidku intuu diray saakun gadaal ka cabsanaya jira mid waxa jira xun oo iska faasiq oo kabaha dad ka xado oo bugaagta ka gooyo oo macallin iska fiiriya ayaa jira mid waxa jira mutaadib oo aad u edeb wanaagsan oo waxa weeye yaa jira ardada alla noosha midba waa dabeecad laakiin adiga waxa laga baahan yahay sida ugu fiican ummadena kula noolaato ardayga ama ruuxa dadka alla baranayso si fiican kula noolow wana hadal wanaagsan iyo waji furfuran kula noolow saaxiibada way tawaadu allahum haska kibrinin dadka aad wax la baranayso la joogta iska weynaysiinin inaad ka hooseyso arag walaalayaalow dhe ummadda aad wax la baranayso hadhibin oo haflagaadeynin oo eray xun ha ku dhihin oo buugta ka jeexjeexin oo wax ma taqaanay dabin baa tahay hadhihin lama ogola mid la umada wax la baranayso inay ku mashquul ku qaylido oo duruusti ama dhageysan lahayeen ama ay ku ceshan hayeen ay qayladaadi warnaga aamus yaado warintaas arrin xun weeye waxbarashadu marka meel ma gaadhayso marka ruuxa raba inay waxbarashadiisu ay u aflaxdo oo meel fiican u gaadho dadka uu wax la baran hayo aadaab fiican kula runta kula noolaado amaanaha kula noolaado oo waxa weeye uu iska kibrinin mid Allah uu san dhibin oo af iyo adin nabi kaleey salaam xuleey muslimiinta waa dadka muslimiinta ruuxa ka nabad galeen afkiisa iyo adinkiisa weeye wala yarfa'u sawtu alayhim sawtkiisa yusan kor ugu qaadin korkooda oo yusan ku qaylin umada aadaabta shanaad waxa weeye la yadhaku wa inuu san ruuxa ku dhax qoslin fil fasli waxbarashada dhaxdeedii biduuni sabab iyo sabab jirin ruuxa marka doo macalinku yar kaftan oo kheer qosarda waa loo laakiin bilaa sabina iska qosasho oo ka xatiraahdo waa aadaab xumo wala yusra wa inuu san badinin al kalaam hadalka wala yaltafitu wa inuu sameelaha fiirfiirinin bal yuqbilu wa inuu soo qaabila ala muallimi muallimku ku soo jeesta oo soo eega macallinkiisa musqina soo dhageysan haya ardaygu ilaahay macallinka aadaabtan waxa weeye ardayga waxa looga baahan yahay wax baranaya fasalka inta lagu jiro ama waxbarashada lagu jiro ee macallinka uu joogo ana waxa weeye waa inuu san hadalka aad u qoslin ama muusonin aamuso yaa la doonayaa mid labaad waxa weeye waa inuu san hadalka badan markuu macallinku sabrad ku jeestaba inuu hoos u ka dhaw wariya hadlayo maanta oo dhan arinta inuu iska ilaaliyo la doonayaa ruuxa waxa la doonayaa inta waxbarashadu socoto inuu sameelaha fiirfiirin daaqadaha iyo iridi iyo san fiirinin iyo ummad kale isku qayliyayse waa inuu macallinka ku soo jeesto wajigiisa oo macallinka ku soo aadiyo isagoo si fiican u dhageysanaya marka hadana uu dhagraaricinaya inuu hurdoodo iyo soo ku soo jeedo haduu hurdoodo waxaas waxbarasho ma aha
لا يضحك وإنه سنكو قسن أحد وبران في الفصل كأي قوب تحبر شذا بدون سوين هدين واحد سوي جيرين ودي وصل معلم كاير قسلين ولا يكثر وأنه سنبذن الكلام هذا الكوان سكبذنين عنق وأنه أرير أو معلم كيسو حويدين هي أو وده معلم مثلا كورن أو سترتيب مويان هذا الكلام أو ما لا يعني الله بهنا وأنه سكيل عليه ولا يلتفت وأنه صنداقها هي مالها كلا وصن فيرين وحكلا وآخره وسكون مشغول بوجيسي هالنقطة هاس وكآخرها هالنقطة وأنا سكون مشغول بل يقبل وأنه سؤال ووجه سؤال على معلمه مسقيا حال صور لسان هيا إليه معلق لسان هيا آداب تكلم لحظة حوية لا يتكلم بدون إذن إنه الله دور وإنه معلم كيس إذا كقاتل لدوني معلم كيسيون إذن با إنه إسكا هذا الله ما أقول فرتا تاجيسا معلمك هذا المركو كلها بهذا ليس لكن معلمك هذا الكلهن بهذا ليسين هذا الكمال ديري سمالو ترى هذا آداب تضبط وحوي لا يلقي وأنه سنكتر الأرض وألف ضلات وحالها قشنك على الأرض الكركيسة بل يحرص كد هي دائما ولقي على نظافة الفصل قوت برشادي فصل النظيف أي نقطة يكد هي أرض وحلايا إنه مو سوقاته عم بسوقاته وأنه سمك قشنك كل حطور فصل كي أما قوت برشادي أرض أنه يصير باورك وكلويانه من أرضه وأنا كوكفن وأنا دبكينينه هدو حلوة سوقته إيه ورقد وسكر جوين هي إيه حاشق وطور هي إيه باع وسكر ضيتاي وأنه سنفصل كجديس قشن كطور بل وأنه كد ذاله إنه فصل كان يقاط برشاد إيه مساجد إيه جواه المدرسة كلها إيه مالها الدور الوها إيه مال نظافة إن النقاط وإنه كد حرس كسارة هبلايا ماشان حاضي إيه الباكوش قلمه قاب تحلو برا هي إلا النظامية أو النظيفية أي اللي هي نظافتنا وشيء دين الإسلام كم ذويه روح شركيسة إيه مرضيسة إيه قاب تأوجوجا إنه روح النظيف كان لقى ومسألة دينية نويان آداب تسديدات اللغة بهي أرضك وحوي إذا أساء هذو كخلدم إلى أحد أرضك هذو كخلدم أو معل كخلدم لا يرد مردين هي الإساءة حمانك مردين هي بمثلها يدي أو كلاء بل يقول حليها سامحك الله وغفر لك هذا لو إلهي سكا مسامح وإلهي يكون ألافه هارتها ما في عنها هذا مركب حوي ذاك مسلمين تا وحباك لقاريو روح مسلمة ayaa wax ka soo gaarayaan hada ruux muslim ka soo gaarayaan oo xumaan ka soo gaadho waa laba ruuxa muslimka ama wanaag ba ka soo gaaray ama xumaan ba ka soo gaaray haday marka xumaan ka soo gaadho ama aflagaada ama adina ay ka soo gaadho intuu doonimo la ekaade mana waxa rabaa inuu ruuxaas ruuxa wixii aad uga abaal gudine bal in uga abaal gudo u ducayn iyo in iska masaamaxdo iyo in iska cafido arintaas la doonayo ولا تستوي الحسنة ولا السيئة اتبع بالتي هي أحسن إلهي وحولي حمان إيه وناك مسنا أدو روح حمان كوسمي أدو أبال قسمي روحي أدو وناك حمان تكوسمي أدو وناك قسمي روح هذا ساعة سميسو والله بقى الرماد إساقي هذا حمان تكوسمي انتو إسوان سمو أيو مركز وحوي والعال ربكو نقون هيا ومد الله بعده أرنتاس وأرن وين لبنا سيور رب الله سبحانه وتعالى لقك النوع إلا الذين صبروا وما يلاقاها إلا ذو حظ عظيم marka inuu ruux intuu dambi ka galo aad iska afdo iska masaamaxdo waxa la siiyaa dadka samra ee samir kale dadka Ilaahay aakhira uu tala galay khayr iyo weyn iyo dheef weyn loogu tala galay dadkaas uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiya arintaas marka waa arin la doonayo dadka muslimiinta inay ku dhaqmaan nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ruux muslim hadii dib loo geysto كدبنا الروح إسكع في إلهي عز وزيادة شرف يا مقام بلا سنية لكن الشيطان وحكوليه هاي شاطر الإنس والجن روحه كأرق جذو ساسو كيري هذه كأرق جذو وقوبرا هذو قوبرتنا حاجات هذه هذو يقول هاي نبغى نحوليه الروح والدم كجرو أو إسكع في إلهي عز وزيادة سبحانه وتعالى ندك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه wax loo geystay lafiisa wari kama arag gudanin
إلا روح إنه دينك الله كو خلدم مويان وروح هدو دينك الله كو خلدم marka nabi maxamed ruuxa uu qaban jiray asagoo diinka ilaahay u aragudanaya laakiin nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam eriyuxun baa la dhigi jiray waa loo gacan qaaday oo geed baa lagu dhaxriday intii xunaha la qabto geed lagu dhaxriday garanaysan nabiga kaleeyhi salaam nabigu wax asaga loo geysay waligii nabi maxamed kama aragudanin salawaatu wa salaamu alayhi ninkii deynta nabi maxamed kula xuyiri maxamed oo deynta isii adiga iyo reecadu mudalib iyo qoyskiina waa la yaqaanay deyn iskama bixisaan nabi maxamed ruux markay saxaabta xanaaqeen war ninkan deyn bi ugu leeyahay deyntii iga siiya ninkii xaq leh wuxuu rabo ku hadli karaa nabi kaleeyhi salaam kii kale ee nabigiina waa xoolaha aad gacanta ku haysay maamulka islaamiga adna maada tabcan aabahana ma tabcanin xoolaha isii markaas intuu nabi maxamed uu qabay ku maroojiyay geed qurac ku dhaxriday nabi maxamed uu qosluxii loo hortay wato midna dhar looga buuxiyo midna raashin looga buuxiyo marka waxa la doonayaa ruux haduu kugu khaldamo waa la iska cafiyaa haduusan diinka ilaahay ku xadgudbo laakiin diinta al ku xadgudbo ku jeejeeso oo ruux ay tahay ruux diinka ilaahay baa loo aaragudan marka subhanahu wa ta'ala mid labaad ruuxii muslimka haduu di xumaan ay kaaga timaado garanay haduu wanaag ku sameeyo ka waran ida qaddama haduu ku sameeyo ku soo hormariyo ahadun haduu ruux ku soo hormariyo u keeno ilaahay ardiga macruuf wax wanaagsan haduu ruux wanaagsan u galay ardagii ama ruux muslimka فليقول له كل هذا جزاك الله خيرا سيده يراهدو اذا قدم هدو كانوا اليه احد كان احد روح له وكاني معروفا ابال بو كان وناق بسمي فليقول له جزاك الله خيرا يراهدو النبي عليه الصلاه والسلام ابال كو غلو وابال غد هذا هو ابال غد اويدنا جزاك الله خيرا ده marka meesha laba xala ku bana جزاك الله خيرا ولا في عين واجبته جزاك الله خيرا هذا صافي عن لكن ضربه وحيدها جزاك الله خير تاس صح معها عربيه صح معها جزاك الله خير marka waxa weeyaan sheegu mar haduu tawin leeyahay in la waqfiyo alif loo waqfiyo sida fi awad جزاك الله خيرا la yiraahdo صافي عن hadii tawintii loo yeelana بعض اللقاط baneeyo جزاك الله خيرا la yiraahdo laga جزاك الله خير meel la ka jirto macna meel la جزاك الله خير kuma jirto خير waxay taa la garanay marka ruux haduu abaal ku galo wax ku siiyo ama erey fiican ku sameeyo ama mas'ala diina wuxuu ku sheego jazakallahu khayra ya daysa macna mid tobnaad ugu dambayso ardiga laga baahan wax baranaya ya xaris oo aanu ku dadaala daaima waligi ala ixtiraam muallimi inuu muallinkiisa ixtiraamo muallinkaaga in ixtiraamta la doonaya muallinka ki xaalatul ummi kaasoo dhisay aan wada farba ada qoonin intii lagu keenay farta ku baray adoo yaroo qaawan adag fadhiday adoo mahbiig isku kaaji adag fadhiday adoo dharka habeenkaada dhabanka ayaa la ag fadhiday ee ku dulqaan ku farbaray muallinkaas oo dad wax barato ama adu aad ka xoolo badato ama ka cilmi badato macna waxa weeye inaad muallinkaaga ogaataan la doonayaa mid kale waxa weeye loo baahan yahay waxa weeye muallinkaaga kale ee wax ku baray ee xaatul ummi kala saar wax ku akhriyay waa inaad muallinkaana ummaha celisa ixtiraamta ruuxa abaalka u galay ummaha celinin ilaahina kuma shukrinhayo mid Allah waxa weeye ilaahay nimcada u siiyay subhanahu ruqsiyay ina ku shukriya la doonaya mid labaad ee adaadka looga baahan ruuxa waxa weeye daa'iman inuu ku dadaalo amalkiisa inuu ikhlaas noqdo ilaahay darti waa inay ka tahay dana kale inay ku jirin hadii cilmiga aan wax baranaysa dana kale loo barto ajir laga heli maayo marka waxa la doonayaa dadka muslimiinta ee khayrka badan amalka ay qabanayaan ikhlaas baa loo baahan kitaabka bukhari markuu imaam bukhari ganay wuxuu bilaabay inama al-amalu bin-niyyat hadika ku bilaabay marka waxa way wax ka soo qabanaysa ilaahay dirta ka hado magacayna ka noqon xoolo heliyana ka noqon wax kale yana ka noqon ilaahay ku raali gali bari waa diwan khayr bad hel insha Allah ta'ala taas marka dadka muslimiinta laga doonaya waxa kale laga doonaya arday wax baranaya inuu macaasida ka fogaado arday kasta inta uu macaasida iyo filamada xunka iyo daroogada iyo salaad la'aanta iyo soon la'aanta iyo gabdhaha ajnabiga iyo waxa intuu arday ka fogaado uu arday kale ka fiican yahay arday sidiisa xumaan ku dhex jira wax ma barto sida loo yahay ciyaalka marka maxaan leenahay maanta Soomaaliyeed ee wax la barayo hadda caruurtiina u kaxaysaan ama adgeysaan meel akhlaaqda laga luminayo oo waxa weeye wax barashooyin ama ay dawladda gaalo iyo gacanta ku hayaan sida kuwa dariska oo kale iyo kuwa ka sii fog ama kuwa wadanka jooga oo law ogtaan hadda Iran ba wadanka joogto oo asxaabta caayaysa oo madrasooyin kula ba joogta waxa jooga Mareykan iyo gaalo dhan ba wadanka joogta Hizbullah ta wadanka jooga marka waxa weeye wadankii oo dhan wax ka furo iskool marka cunuga hadda tara iige cunugaas wax bartaa ka sugin
aslan wax lagu barto waxa way aadaabta wanaagsan iyo macaasi inta laga fogaado uu ardaygaas noqonaya arday dhisan oo wanaagsan ayuu noqonayaa waxa la doonayaa macallimiinta waalidiinta inay ku dadaalaan cunugooda nabi kaleey salaam uu kiraay xasan iyo xuseen haye ayagoo yar oo saddex jir ah ama ka wasiyarba markay timirska inay qaataan ay ku tala galeen nabi wuxuu yiri uf akh nabi kaleey salaam waraana waa ahlu bayt bana wax mucna daay waa yar wiil garaana wax la cunahayna asraa ku yiri war gacanta mid ku cunwiyo bismillaah dhaho gacanta mid ku cuno dhankaaga cun nabi kaleey salaam caruurta marka waa in lagu daala aadaabta sharciga ee wanaagsan si ay wax u bartaan laakiin oo dharkooda laga dhigo dharka sharciga oo qamiisyada iyo koofidaha yarka cad iyo xumaamadaha iyo waa in caruurta dharkooda laga dhigaayo gabdhahana xijaabka iyo goono weyn oo jiitamaysi iyo waa in gabdhahana laga dhigaa cunugana waa in lagu tarbiyeeyaa tarbiyada islaamka waa in laga ilaaliyaa marka wax baranayaan wiilasha iyo gabdhuhu inay isdhaxgalaan oo markii ay fasalka isdhaxgalaan ama markay baxayaan ama caruur yar oo matqaan ku soo kala aabiye kala hooyaa inay madrasada dhexdooda si ay ugu sheekaystaan ama si ay u saaxiibaan in laga ilaaliyo la doonayaa hadii kala waxbarasho naajix ma noqonayso macallinkana uu dadaali rafaadi ardaygana uu rafaadi waalidna lacag baa ka baxaysa waana aragteen waxa leenahay wax lagu barto waxa way cunuga inuu aadaabta islaamka ka dhisan yahay ayaa la doonay kale fasal kasta ama maada kasta wuxuu ka keenayaa eber ama wuxuu ka keenayaa waxba ahayn keenaya waa dhaca lagu leeyahay ardaygaaga dib u fiiri akhlaaqdiisa xumayd marka waxa la doonayaa in la dadaalo la doonayaa habartuna qaad bay gadaa odaguna qaad buu cunaa cunugana dan laga male asag garaabada hooyadiisa aabiisu qada sigaarka iyo tubakan uu soo gadaa cunugaas waxba baran maayo sheekhaas ku daalinin waxaan leenahay insha Allah taala adaabta lagu dadaalo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh